السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كسو دوادا channel كحنق شو موضوعا ما انت كهل دونو وحو نقون دونا شيكدا اما قصدا اكتر دون دعانكا كاسو لقو مقعابو سيلفاستر ستالون اما رامبو مايكل سيلفاستر ستالون او سومالدو اتقانو رامبو وحاول لشي لحدي جولاي كون سقال بقول افرتني لحدي وحو نقود شي مقالدا نيويورك الدالكا مريكنكا وحاو كدا شي قوز تلياني waxay qoyskiisa u soo boqoleen dalka Mareykanka sanadkii 1930kii waxa ay markii ay dhalaysay hooyadiisa ay la kulantay dhibaato culus waxaana go'aan lagu gaaray in lagu sameeyo qaliin laakiin waqtigaasi ma jirin qalab casri ah oo wax lagu qalo taasoo sababtay in wajiga uu dhaawac ka soo gaaro qaliinkii la sameeyay awgeed Sylvester ama Rambo actorkan yaraantiisa lagama hayo wax sawir ah Sylvester markii da'diisu ahayd 9 sano waxa isfuray hooyadiisa iyo aabihiisa laakiin Sylvester waxa uu raacay hooyadiisa filimkii ugu horeeyay uu ka qayb galo wuxuu ka qayb galay sanadkii 1970kii isagoo filimkaasi la siiyay qarash yar oo gaaray $200 maadaama filim sameynta lagu qaato lacag badan isaga waxa uu ogolaaday lacagtaas aadka u yar sababtoo ah waxa uu ahaa mid aan haysan hooy aadna u niyad jabsanaa kadib markii laga soo saaray gurigii uu deganaa waxa uu seexanayay boostejada tareenka oo ku taal New York kadib waxa uu furantay wadadii jileenka uu ku noqon lahaa jilaa kadib waxa uu bilaabay inuu ka qayb qaato sameynta aflaanta isagoo hogaamiye ka ahayn ama actor wuxuu hogaan filin ama actor noqday sanadkii 1974 isagoona ku bilaabay filimkii The Lords of Flatbush wuxuu dabadeed sameeyay aflaan fara badan sanadkii 1975 isagoo daawanaya ciyaar feer oo dhex maraysa Jack Winner iyo Maxamed Cali Kalay uu helay fikrad noloshiisa wax ka bedelaysa taasoo ahayd filimkii taxanaha ahaa Rocky filimkan Rocky waxa laga daawaday dunida oo dhan ilaa uu gaaray shirkadaha alaabta soo saara inay u bixiyaan alaabta ay soo saaraan sida baabuurta iyo dharka caruurta filimkan wuxuu ka hadlayay nin faqri ah oo aan waxba baran oo qalbigiisa nadiif yahay oo aad u jecel ciyaarta boxerka ama feerka Sylvester markii uu ka soo laabtay ciyaarta feerka wuxuu go'aan ku gaaray inuu qoro sheekada filimka waxayna ku qaadatay qoristiisa 3 maalmood kadib markii uu qoray filimka wuxuu isku dayay inuu gado sheekada filimka waxaana u bogay dhammaan shirkadaha sameeya filmaanta laakiin Sylvester wuxuu watay shardi ah inuu isaga filimka actor ka noqdo ama hogaan shirkadaha soo saara aflaanta Sylvester waa ay ka diideen arrintaasi isagana wuxuu go'aan ku gaaray inaan isaga ciidan ahayn aysan actor ka noqon ugu dambeyntii waa laga ogolaaday kadib sameyntii filimka Rocky wuxuu noqday mid caana oo loo bogay jilidiisa isagoo noqday aktarada ugu caansan sameynta filmaanta actionka Sylvester Stallone oo Soomaalidu u taqaan Rambo kaasoo ay ugu magac dareen filimka Rambo ee uu sameeyay Sylvester wuxuu jilay filmo badan sida The Lords of Flatbush Rocky oo ah filim dhowr qaybood leh Rambo iyo Fast Blood iyo Escape Plan iyo filmaan badan oo kale Rambo ama Sylvester hadda waa actor weyn oo dunida caan ka waana jilaa qoraa soo saara filim waana aabba dhalay 2 wiil iyo 3 gabdhood waxa uu soo guursaday 3 dumar waqtiyo kala duwan yaraantiisii waxa uu soo wajahay dhibaatooyin badan wuxuuna jilay 51 filim hantidiisa waxa ay gaaraysaa 400 bilyan